السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا خيارتي شرفت له وإذن سلامية وإذن سو دوينيا وبرنامجكي صاد إيغا براتي مرولبا إذن سو قدبنايي وحيابها السنطة قريها نو يالا آن عنو أما آن استعمالنو وهدنا آن ورك أهينين maanta iyo research kale researchka maanta waxaan ku soo qaatay cuntooyinka maxaa kamid ah 4 cunto oo maalin walba aan isticmaalno ayaa maanta rabaa inaan idin la qaybsado dhibaatooyinka ay keenaan oo ay kamid tahay xataa dhimasho inaad ku dhimato hadii aadan maaragtay ka taxadirin badanaa waxa laga yaabaa qof kasta inuu soo maray xaaladahan number 1 waxaan ku soo qaadanayaa bataatiga ama baradhada cad ayaan ku soo qaadanayaa laakiin baradhada waa noocee baradhada noocan waa inay cadaataa waa inay cadaan ay noqotaa marka ay diyaar tahay waa inay cadaan noqotaa laakiin qaar baa green ah ama cagaar ah haddii aad aragto bataati cagaar ah ka digtoonow waa sun baa ku jira sababta uu cagaarka u noqday ayaa jira bataatiga marmar qaar baa cagaar noqda laakiin way isbedelaan oo waxay isku bedelaan cadaan marka ay bislaadaan ama ay diyaar noqdaan haddii bataatiga uu cagaar yahay oo aad soo gadato aad ku aragto bataati cagaar ah please iska tuur ha cunin iska tuur bataatigaas waayo dhibaatooyin fara badan ayuu keenaa sun ayaa ku jirta sun laba nooc oo kala duwan oo sun ah ayaa ku jirta oo dhibaato u keenta calool xanuun matag adiga wax la yiraahdo food poisoning sun ayaa maaragtay caloosha ka galaysa qofku wuu matagayaa dhibaata ku dhacaysa tan labaad aan soo qaadanayo waa digirtu way kala tahay digir oo dhan dhibaatay keenta haddii aanan si fiican loo karinin tan ugu xunna waa kidney bean tan la dhaho kidney bean tan sida oo kelida u eg kidney bean ayaa la dhahaa digirtaas walaalayaal haddaan si fiican loo karinin bajiyadan ku samaysanaa Soomaaliya marqa baa lagu samaystaa bajiyada lagu samaystaa especially marka bajiyada lagu samaysto badanaa bajiyada waa la dubaa Soomaaliya inta la soo shiido ayaa la dubaa marka haddii aanan si fiican loo karinin oo digirtaas ay si fiican u karin dhibaatooyin fara badan ayay keentaa waa lagu dhintaa caadi ahaan ayaa lagu dhintaa shuban matag wareer lalabo qandho subxaanallah isbitaal loo galaa ha laga digtoonaado digirtaas tan saddexaad waa chickenta ama doorada ama digaaga waa la socotaan dad badan ayaa la socdaan u malaynayaa doorada ama chickenta ama digaaga dukaamaday taalaa especially wadamadan dibadaha Soomaaliya digaag waxa la sameyn jiray waa la soo maaragtay gurigaaba lagu samaysan jiray inta doorada iyadoo nool la soo qabto oo yaa la diyaarin jiray guriga lagu diyaarsan jiray laakiin hadda chickentii oo diyaarsan oo malaha bilooyin 5 bilood 6 bilood 7 bilood waxay dukaanku ay soo kusoo jirtay ama bacda ay kusoo xirneed ma ogid marka waa iska soo gadanaa waxa ku abuurma wax la yiraahdo salmonella dad maqasheen ma ogid salmonella poisoning wax la dhaho ayay leedahay oo bacteria aad u xun ah oo dhaawac weyn caloosha gaarsiin karto iyaduna waa haddii aanan si fiican loo karinin haddii loo karinin waa iyaduna calool xanuun madax xanuun qandho lalabo isbitaal ayaad gali kartaa marka qaarkood qofka bani aadanka shubanka badan iyo mataga badan waa lagu dhintaa iyaduna waa halis kale marka taasna waa maaragtay ha laga digtoonaado ayaan idin leeyahay tan kale afraad waxa waaye Joyce waa taqaaniin ama Joyce waa loos ama seed oo xalwada lagu karsadaa Joyce ayaa la dhahaa ama Joyce saa u taqaanid Joycekaas waa dhibaato fara badan ayaa laga qaadaa haddii uu kugu bato hadii waxa la yiri 2 qaado haddaad cabto ama aad cunto waa just 2 qaadaya
laba qaado haddaad cabto oo ama aad shaah ku qasato ama aad cunto ku qasato oo aad cabto waxaa laga yaabaa inaad isbitaal si degdeg ah u gashid ama aad maar ku dhimatid ayaa laga yaabaa sun ayuu leeyahay hadduu kugu bato jooska ha la iska ilaaliyo kulli xalwadaa ku darsanaa laakiin wax badan laguma daro waa ogtiin xalwada hal mar lama wada cuno waxaa laga yaabaa xalwadoo dhan kiiladii oo dhan in lagu daro 2 qaado ama 3 qaado ama 4 qaado lagu daro laakiin xalwada badanaa wax yaraan ka cunaa wax badan lagama cuno laakiin waxaa lagu leeyahay haddii joos uu kugu bato xataa waxaa laga qaadaa qofkas wuxuu noqonayaa qof aan aqligiisa ama meerkiisa aan joogin qofku aqliga qof waa lala hadlaya qofkii laakiin waxba ma kala ogaa qof oo maqane jooga oo kala noqonaysaa qof warwareersan ayaad noqonaysaa lalabo madax xanuun qandho matag adigoo qof sun ay jirku gashay oo kale ayaad noqonaysaa marka halaga digtoonaa isaguna insha Allah intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa waa 4taas shay ayaan la qaybsanayaa walaalahaaga la qaybso saaxiibadaada la qaybso ehelkaaga la qaybso share gareeya channelkayga haddaad ku cusub tahayna subscribe saar si aad u ogaato waxyaabaha faraha badan ee sunta ah ee aanan warka u haynin inaan idin la socodsiiyo insha Allah waad ka faa'iidi doontaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh